wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda ku-meelgaarka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Xaabsade oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay qorshe la doonayo in maamul goboleed loogu sameeyo qaybo kamid ah gobolada koonfureed ee dalka kadib markii jaaliyada ka soo jeeda goboladaasi kulamo looga arinsanayo maamulkaasi ay ku yeesheen wadamada ay ka mid yihiin Holland iyo Kenya isla markaana ay arrinkaasi ay ka hor yimaadeen qaar ka mid ah malaaqyada iyo aqoon-yahanada fadhigoodu yahay gobolkaasi Bay. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Ibrahim Maxamed Xaabsade ayaa daboolka ka qaaday in ay wanaagsan tahay marka hore dhismo maamul goboleed balse loo baahan yahay buu yiri marka ugu horeysa in la soo maro ahliga dawladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya. ahdi qarmeed baa jiro oo lagu soo heshiiyay shirkii Mbagati dalka wuxuu qaatay mabda federaalkana waxaa laga rabaa hirgelintiisii dawladda. waa ogtihiin xukuumaddii ra-iisul wasaare Ali Maxamed Geedi waxay ku dhacday federaalkii hirgelintiisi oo waqti xilligii la rabay ay wax ka qaban weysay ayay ku dhacday. dawladahan ka dambeeyeyna way u taallaa arrintaas dadaalkeedana waa socdaa. marka gobolladana ahdiga waxaa ku qoran laba wixii ka badan hadda sidii ay isu raaci karaan populationka ku dhaqan wixii uu ku heshiiyo ayaa la yidhi gobollada federaalkooda waa u hirgeli karaa. marka dawladdaa laga sugayaa guddiyaha jira guddiga federaalka, guddiga xuduudeynta gobollada iyo degmooyinka, kuwa guddiyo qaran ah iyo kuwa guddiyo hoosaada intaba way jiraan. waxayna ku howlan yihiin sharciyadii gobollada iyo degmooyinka federaalka lagu kala saari lahaa. marka runtii ayadoo dawladdiiba dadaalkaas ay ku jirto aniga waxay ila tahay Denmark miya mise waxay ahayd Norway Netherland ayaa waxaa la shir baa ka dhacay oo looga hadlaa gobolladaas federaal ku saabsan oo la yidhahdo Jubbaland. waxaa waaye arrintaas aniga waxay ila tahay waxyaabo degdeg oo wax ku xumaan karaan baa jira. magacooduna wanaagsan yahay, federaal waa wanaagsan yahay, dowlad goboleed in la dhiso waa wanaagsan tahay. kuwa hadda jirana waa u hambaliyeynaynaa dadaalka ay dadaaleen ugu yaraan gobolladii ay ku nooleen nabadda iyo deganaanshaha ay kusoo dabaaleen aad bay u mahadsan yihiin. marka in la diidaya ma aha dhisid dowlad goboleed, laakiin dadaalkaas haddii aan ku iman qaabka hadda dawladda waxa u wado oo ahdiga la raacayo haddii aan lagu wadin shacbi gobol in laba ku nool haddii ay la busoo boodaan waa ogtahay dhibaatooyin bay keeni karaan. aniga odayaasha shalay bay dhaba ka hadlay inay wax diideen uma arkaynin, dhisidana ma diidin, laakiin waxay yidhahdeen arrinta yaan laga hordhacin yaan hadhow dhibaato loo keenin. waxaan aaminsanahay inay ra'yi wanaagsan ay taas tahay. kuwa oo waxbaan dhisayna yidhina dhis maaha wax la diiday, laakiin qaabkii ahdiga waafaqsan in la raaco haddii kale hadhow waxbaa ka imaanaya. waa intaas. Xaabsade ayaa si taxadir leh u taageeray codka ka soo yeeray odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi Bay oo ku aadanaa in aanay marnaba ogolaan doonin dhismo maamul goboleed ay yeeshaan goboladaasi. hase yeeshee isqabqabsiga haatan ka soo ifbaxaya ee la doonayo in maamul goboleedyo loogu sameeyo qaar ka mid ah gobollo ku yaala koonfurta dalka Soomaaliya ayaa waxay u muuqataa mid u baahan in la maro xukuumadda dawladda ku-meelgaarka ee Soomaaliya. lamana oga sida ay markaasi u ansixmi karto inay goboladaasi yeeshaan maamul goboleed dhismihiisu. si kastoo yaataba waa markii ugu horeysay ee wasiir ka tirsan xukuumadda